dad Soomaali ah oo carbisay oo dhaqaale ku bixisay oo iyagu TPLF laakiin Soomaali ina la sheeganaya dadkaasi dawladda ku jiraan xukuumadda oo Mustafa hogaamiyo waxay ku jiraan ururaday ku jiraan ama xisbiyada kale waxay ku jiraan wariyaasha waxay ku jiraan activistayaasha waxay ku jiraan shacabka dadka TPLF u shaqeynaya ee saas ah ma ka garanaysid dadka kale iyaga ka wadanisan iyaga moodaysaa dad danqanaya laakiin saddex shuruudood ay isku mid ka yihiin oo qofka TPLF ta saddex shuruudood ayaa lambar 1 u ah oo weligii alihi saddex shuruudood ay isku mid ka noqonayaan ta koobaad waxa weeyaan qofkaasi weligii wax wanaaga kama sheego deegaankeenaas sidii TPLF ugu dhacay dhibaatadii ay u kala qarartay ee ninkii Cabdi Ilay ah meesha looga qaaday intii ka dambeysay shar iyo balaayo mooyaane wax wanaag ama sheego kaliya iyagu wax dhib ah bay sheegaan waa ta koobaad talabaad dadka Soomaalida ee TPLF ta ah ee ama wax qora ama wariyaasha ah ama wax soo gudbiya ama dadka meelaha la fadhiista ee ku waramaya weligood iyo allahood TPLF wax kama sheegaan ma dhaleeceeyaan waxbana ma ka sheegaan aan kugu sii daray lambar 2 ku jirtaaye dadkii ay TPLF dhibaataysayna ma soo hadal qaadaan oo qof dhibana oo TPLF ay wax u geysatay meeshooda ma soo dhigaan ma wax ku TPLF dhib ay geysatay kuma arkaysid dadka waata saddexaad TPLF dhibaato kasta oo la gaarsiiyo ma soo bandhigaan yadan keli wixii iyagu ay guul ay gaareen oo buunbuuniyeen oo been ku dareen bay soo bandhigaan laakiin shuruudaha saddexda shuruudood ee dadka TPLF ta ee Soomaalida ay sameeyaan baa taas ah mar walbana iyagu deegaanka Soomaalida wax dhibaato ah mooyaane wax wanaag kama sheegaan saaxiibayaal waxaan rajeynayaa intaas tusaale inay noogu filan tahay Cabdisaasar haye uu bad qabaa waan wada hadalay hase ahaatee qof walba oo TPLF wax ka sheego taxadar deegaankeenu waa wada TPLF wasiirada TPLF ah 27 sano dadkii inay haystay ma u malaynaya sanad iyo 2-3 inay naga dhamaanayaan warwad mahadsantihiin waxaan rajeynayaa dhalinyarta dhibaatooyinku soo gaadhay ma u malaynaya dad deegaankeena qof u dhashay oo dhibaato soo gaarin inuu jiro ma u malaynayo qof walba oo deegaankeena u dhashay dhibaato way gaadhay laakiin damiirka yaan laga sinayn damiiryaasha oo dadkii ina soo dhibaateeyay iyo dadka taageersanba aan meel uga soo wada jeedsano aan iska qabanno dadka inugu dhex beerteen TPLF inugu dhex beeratay aan dilo aan iska qabanno naxariisiinaan u gelin kadib xabasho iyo wixii kale soo raacana waan ku daraynaaye waa in salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dad Soomaali ah oo carbisay oo dhaqaale ku bixisay oo iyagu TPLF laakiin Soomaali ina la sheeganaya dadkaasi